niman hogaami kooxeeda la dagaalay rag badan oo saraakiil oo kaga dhint halkaas lagu aasay ilaa maantadana ciidamada iyo saraakiil badan ay ku aasan yihiin oo aan ognahay ciidamadaas ayaga ah wiilashoodii iyo ilmahoodii iyo ciyaalkooda iyagoo oynaya hadda aan aragno oo ay leeyihiin 20 sano iyo 10 sano iyo dhowr sano iyo 20 sano ka soo wareegatay waalidiintan xilliga halkan ku aasiyay mana garan karno maxaa ka dhib badan boqolaal kun oo meeyta ah oo dad masaakiin ah oo qaarkood aan familada qaarkood ay 10 qof kaga aasan yihiin tabarna isu haynin xawaalihi qaarna aysan garanayn in maanta muddo 10 cisho ah loo qabto marka waa dulmi waa gardarro waa xadgudub waa foolxumo marka waxay ila tahay marka dhammaan inaan ugu istaagno arrinka asiga waxaa dadka lagu qanciyey dan guud ayaa meeshaan loo banaynayaa waxaan wada ogsoonahay maanta oo maqaataan ka wada nahay wax halkaa ka dhisan in meeshii loo qiibiyey dadkii tujaarta ahaa dadkii maxaan ku raahdaye yani wax kasta yani karay in maxaan ku raahdaye la iibsaday oo dadkii de wax siyaasad la sii qanciyey dad iyo wax la iibsaday laga dhigo waxna dad siyaasiyiin loo qiibiyey aad baad mahadsan tahay xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud sheekh xasan si wanaagsan baad u iftiimisay waxaan markan jeclaa inaan u gudbiyo xildhibaan yuusuf xuseen gamadiid oo gudoomiyaha guddiga khayraadka iyo ilaalinta deegaanka ah khayraadka dabiiciga ee deegaanka ah sidoo kale wasiiru dowle hore ahaa xildhibaan yuusuf soo dhawow maxaad ku dar lahayd intaa uu sheegay xildhibaan cabdisamed aad baad u mahadsantihiin marka cabdisamed siduu sheegay wey horta wakhyaaray waxaa weeyaan runtii waa wax aad looga argagaxo aad looga xumaado arrinkan ay xukuumaddu ay ku dhaqaaqday waxaan ogsoonnahay dhulkan hadda la sheegayo oo ciidanka badda ayaa u baahan la leeyahay in ay horey u jirtay xeryo badan oo ciidamadu ay leeyihiin qaarna weli dad shacab ay ku nagan yihiin qaarna xukuumadda hadda joogta hadda tookadan oo madaxweyne xasan hadda uu jooga iyo mar horeba la bixiyey oo dad shacaba laga iibiyey waxaa kaloo jira dhul ballaaran oo maxaan ku rahdaye kan kasii dhib yar oo xeebta taadsan oo amni ah marka waxa ay andara ah dhul marka kooban oo 100 mitir iyo xoogaa ah oo naftigeeda daxeerada hadda iyo ahmiyadda ay leedahay la sheegaya xataa aanan ku filnayn in maanta oo aan ogsoonnahay halkan in dad lagu aasayay muddo ka badan 30 sano oo intaan ogsoonnahayna dowladdii ku meel gaarkii cabdiqaasim saad xasan madaxweynaha ka ahaa ciidamadii xilliga militariga ee la isu keenay niman hogaami kooxeeda la dagaalay rag badan oo saraakiil oo kaga dhint halkaas lagu aasay ilaa maantadana ciidamada iyo saraakiil badan ay ku aasan yihiin oo aan ognahay ciidamadaas ayaga ah wiilashoodii iyo ilmahoodii iyo ciyaalkooda iyagoo oynaya hadda aan aragno oo ay leeyihiin 20 sano iyo 10 sano iyo dhowr sano iyo 20 sano ka soo wareegatay waalidiintan xilliga halkan ku aasiyay mana garan karno meeshan kana tarbiyyad baa la gelinahay leenahay waxaan sameynaa ma aqaan ay ku barooranayaan oo ay leeyihiin waxay nagu xanuun badan tahay maalinkii waalidkanaga uu dhintay ay maanta nagu xanuun badan tahay runtii arrimaha noocaas ah waa arrimo aad u foolxun wax la aqbali karana ma ahan waxaan ogsoonnahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud taramkiisii hore dhulka jayga taadsan oo maxaan ku rahdaye la yiri oo marka ay deganaayeen dad masaakiin oo danyar ah ay deganaayeen badankood in la yiri eelaboorka amniga dartiis ama amniga eelaboorka dartiis dadkan hala raro qaarkoodna hataa ay ku dhex jireen sida la sheegayay dad guryo sharci ah ama maxaan ku rahay dukumeenti sharci haystay dood dheer kadib iyo qaylo dheer oo baarlamaankii sagaalaad iyo shacabkii iyo wixii isqabsi dheer kadib waxaa dadka lagu qanciyey dan guud ayaa meeshaan loo banaynayaa waxaan wada ogsoonnahay maanta oo maqaataan ka wada nahay wax halkaa ka dhisan in meeshii loo qiibiyey dadkii tujaarta ahaa dadkii maxaan ku rahdaye yani wax kasta yani karay in maxaan ku rahdaye la iibsaday oo dadkii de wax siyaasad la sii qanciyey dad iyo wax la iibsaday laga dhigo waxna dad siyaasiyiin loo qiibiyey hadda waxaan hubnaa waxa la sheegayna waxba ka jirin oo taa ay la mid tahay oo ay tahay dara gaara iyo hoteelo iyo qorshayaal shakhsiyadeed in laga leeyahay ganacsato iyo dad loo xirayo loona iibinayo marka waa nasiib darro iyadoo ay dhibaatooyin kale waaweyn ay jiraan oo hore qayli aan ugu soo daalnay oo in loo midoobo dadka qulubtooda loo mideeya ay ahayd oo qarankeenu maanta khataro badan ku sugan yahay in maanta meeytadii oo maxaan ku rahdaye qaarkood xataa aan la garanayn halka ay ku aasiin heladooda isla soo bixi karin in maanta la yiraahdo hal la bixiyo waqtina ha loo qabto isla markaana la yiraahdo maxaan ku rahdaye dan guud ayaa laga rabaa marka
anigu waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan yacni waxaa marqaatimo doonto ah wixii soo dhacayo oo la dhihi jiray dhulkan dan guuda loo bixinayaa iyo dan kadibna ay noqotay dana khaas in loo sameeyey tii unbay la mid tahay arrinkan in loo istaago dadka masaakiinta ahna loo gurmado waxaan ogsoonahay kacdoonkii Rabiicul Carab loo bixiyey wiil yar oo rootiga uu ku qaaliyo waddo isku guba yahay maxaa ka dhib badan 100,000 oo meeyta ah oo dad masaakiin ah oo qaarkood aan familada qaarkood ay 10 qof kaga aasan yihiin tabarna isu haynin xawaalihii qaarna aysan garanayn in maanta muddo 10 cisho ah loo qabto walaalayaal marka waa ayaan daray in nasiib darro aad u weyn waxaan aaminsanahay in haddaan dhammaanteen u istaagno inaan waxaa sixi karna kana hortegi karno marka inkastoo ay bilaabeen dadku qaar oo dadka yacni dhowaan meesha dadka ku aas meesha meel bacad ah oo bacadku badda ka soo rogmado yacni si dhaqsi ah u aasayo oo isdul marinayo dhammaan dadka marka dhawaa ama booqashada qabuuraha ama eheladooda inay booqdaan ay ku badnayd way garteen oo way la bixeen laakiin yacni baraha bulshada ayaan ka dareemi karnaa 100 qofood oo garan weeday oo iska quusatay guryaha isaga oo cabaadayso oo inaysa marka khiyaare marka arrinkan waa arrin aad u weyn oo runtii la rabo in loo wada istaago shacab iyo mas'uuliyiin iyo dawladba inaan ka hortagnana ay mudan tahay marka aniga waxaan ku soo gabagabayn lahaa ilaahay idinkii haddanaga baarlamaanka waa naga xiran yahay 3 Julaay ayuu furmayaa insha Allah taala doorka nooga aadanna waan qaadan doonaa shacabka ayaa ah awoodda koowaad ama dawladdu iyo dhulkaba shacabka ayaa iskale dawladda iyo mas'uuliyiintuna ayaga igu adeegaan rabitaankooda sida ay wax rabaan waxaan kaloo ogsoonahay dhulka dadka lagu aaso ciidamada mariiniska meesha ay kala haayeen darbi ayaa ku wareegsanaan jiray qaybta badda xigtaahi wax calaamad oo ciidanka u lahayd ma aysan jirin way banaaneen dadkana meesha lagu aaso waa halkaasi halkii markii hore darbiga ugu xirnaa ciidamadu oo koobnay qofna kuma aasna marka dhulkaasi naftigeedu waa dhul dadka Soomaaliyeed iyo dawladaba ay leeyihiin cidii ku hormartaana iskala shariicadana waxay qabtaa dhulka cidii marka diimeedku ku hormaro oo milkiyad iyadoo shakhsi aysan ku dhicin oo meedka ku hormaro meedka uu xaq badan wax walbaba tan marka milkiyad shakhsiyeed ma ahan waa milkiyad shacabka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa waaye isla markaana dhulka waxaan deeynaa ciidankana kuma jirto banaanka ka jira marka waa dulmi waa gardarro waa xadgudub waa foolxumo marka waxay ila tahay marka dhammaan inaan u istaagno arrinka asiga kana difaacno nimanka damiirkooda uu siiyey meetada inta meesha lagu aasayay oo eheladu qaar aan wada aragnay garanayeen garan la yihiin iska ooyayaan meel ay geeyaan aysan aqoonin awood iyo tabarna isu lahayn inaan ka hor istaagno u midowno arrinkaas aniga ku soo gaweyn aad baad u mahadsantiin